kulanti hagaagsan halkani waa dunida TV qodobada aad ku daawan doontaan warkeenana waxa qayb ka ah dani oo xilalkii ka cirshay qaar kamid ah golihiisa wasiirada xubno kale tan magacaabay madaxweynaha Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo maalmaha soo aadan booqad doona jiidaha horeeta ee dagaalka ee ciidamada dawladdu ay ka wadaan howlgallada ka dhanka al-shabaab madasha ay ku midaysan yihiin mucaaradka lafti gareen ee koonfur galbeed oo si adag uga horyimin muddo kororsiga Cabdicasiis lafti gareen uu sameystay iyo madaxweynaha maamulka galmudug Axmed Cabdi Kaariyo Qorqor iyo saraakiisha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo wasiirka gaashaandhigga oo booqday jiidaha horeeta ee dagaalka ee gobolka Galgaduud qodobadaas iyo qodobo kale oo daahsan ayaad ku daawan doontaan warka dunida TV deeta markii kugu horeysay soo booqato ama subscribe saarto YouTube-ka kana mid noqoto saaxiibada ku xiran mahadsanida madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Dani ayaa xilalkii ka cirshay wasiiradii ka tirsanaa xukuumaddiisa kuwaas oo si toos ah u hoostagi jiray kooxda Aaranjan oo iminka uu la galay dagaal siyaasadeed madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Dani ayaa magacaabay wasiiro cusub oo xukuumaddiisa ka mid noqonaya kadib digreeto ka soo baxday xafiiskiisa wuxuuna ku sheegay in baahi loo qabo dhamaystirka golaha xukuumadda Puntland dhinaca kale madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Dani ayaa magacaabay agaasimaha hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka Puntland ee loo yaqaan BISA wuxuuna u magacaabay sareeye guuto Jamaal Carab Xuseen oo loo magacaabay agaasimaha hay-addaasi madaxweyne Dani ayaa la sheegay in war-saxaafadeed ka soo baxay xafiiskiisa uu go'aan ku gaaray kadib markii la tashiyo la sameeyay ku-xigeenkiisa inuu magacaabo wasiirada kuwa kale tan uu xilka ka qaado Cabdi Faarax Juxa wasiirkii hore ee arrimaha gudaha Soomaaliya ayuu madaxweyne Dani u magacaabay wasiirka arrimaha gudaha iyo dimuqraadiyadda Puntland sidoo kale waxaa loo magacaabay wasiiro Maxamed Cabdiraxmaan Dhamancad oo loo magacaabay in uu noqdo wasiir muhiim ah oo ka tirsan xukuumadda Puntland asaga oo noqday wasiirka maaliyadda Maxamed Siciid Maxamed Faroole ayaa Dani u magacaabay wasiirka qorsheynta iyo horumarinta dhaqaalaha waxaana dhalay madaxweynihii hore ee Puntland Cabdiraxmaan Faroole Maxamed Cabdi Wahaab Axmed ayaa loo magacaabay wasiirka cadaaladda iyo arrimaha diinta Puntland halka Cabdirasaaq Cumar Ismaaciilna loo magacaabay inuu noqdo wasiir dowlaha wasaaradda maaliyadda maamulka Puntland tilaabadan ayaa la xiriirta sidii sare loogu qaadi lahaa arrimaha ku aadan sidii xukunka ku sii adkeysan lahaa Dani isagoo meesha ka saaraya saaxiibadiisii siyaasadeed ee Aaranjan dagaal adag ayuu ku qaaday dhammaan xubnihii Aaranjan ugu jiray dowladda Puntland wuxuuna go'aansaday inuu ka sifeeyo golaha wasiirada iyo xubnaha kale ee sida dhow ula shaqeeya waxaa halkaasi Dani uu xilka uga xayuubiyay wasiirka maaliyadda Puntland Xasan Shire Abgaal iyo xubnihii kale ee la shaqeysan jiray waxaana gabi ahaanba la sheegay inuu shaqada ka ceyrinayo agaasimayaasha iyo xubnaha kale ee ka socda dhinaca Aaranjan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa qorshihiisa maalmaha soo aadan wuxuu ku wajahan yahay inuu booqdo furimaha horeeta ee dagaalka ila wargalo oo ka tirsan xafiiska madaxweynaha ee Villa Soomaaliya ayaa noo xaqiijiyay in madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud uu maalmaha soo aadan booqdo doono furimaha horeeta ee dagaalka si uu dhiirigelin ugu sameeyo ciidamada qaranka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa la xaqiijiyay in qorshihiisa koobaad uu siinayo dhiirigelinta iyo garab istaaga ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa dadka deegaanka ee dagaalka kula jira kooxda al-shabaab
madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa booqan doona qeybo kamid ah furimaha dagaalka ee gobolka galgaduud iyo sidoo kaleeta gobolka hiiraan, waxaana la sheegay in ujeedka ugu weyn ee dhiirigelinta iyo tegitaanka goobaha dagaalka madaxweynuhu ay tahay in ciidamadu ay hore u sii wadaan dagaalka ka dhanka kooxda. madaxweynaha ayaa iyadoo ay galbinayaan ciidamada dowladda iyo kuwa amisom la filayaa inuu qeyb ka noqdo howlgalka lagu baacsanayo al-shabaab ee lagaga xoreynayo qeybo kamid ah gobolada dalka oo ay muddo badan ku sugnaayeen. madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa qaar kamid ah xafiiskiisa shaqaalaha ka shaqeeya waxay sheegeen in markii uu kasoo laabto shirka qaramada midoobay uu qorshihiisu uu yahay inuu tago goobaha al-shabaab lagula dagaalamayo si uu dhiirigeliyo ciidamada qaranka. madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor, wasiirka gaashaandhigga xukuumadda soomaaliya, taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo saraakiil kaleeta ayaa booqday qeybo kamid ah saldhigyada iyo goobaha ciidamada dowladdu ay ku sugan yihiin ee gobolka galgaduud. furimaha horeeta ee dagaalka ayay booqdeen madaxdani, waxayna u kuurgaleen dhaqdhaqaaqyada ay wadaan ciidamada dowladda iyo sidoo kaleeta dadka deegaanka, taasoo ka soconaysa qeybo kamid ah jiidaha horeeta ee dagaalka ee gobolka galgaduud. wasiirka gaashaandhigga xukuumadda soomaaliya, taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliya iyo sidoo kaleeta madaxweynaha galmudug ayaa dhiirigelin ugu tagay ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo saraakiisha horkacaya ee ku sugan deegaanka sanadhaqo ee gobolka galgaduud. kormeerkooda waxaa loogu talagalay inay qeyb ka noqdaan howlgalada ka dhanka kooxda al-shabaab iyo inay ku dhiirigeliyaan ciidamada howlgalka la qaadayo ee muhiimka u ah xilligan dowladda federaalka. madaxweynaha galmudug iyo wasiirka gaashaandhigga xukuumadda soomaaliya oo warbaahinta kula hadlay goobta ay booqashada ku tageen ayaa ciidamada ku dhiirigeliyay inay xoojiyaan dagaalka ka dhanka al-shabaab iyo in sida ugu dhaqsiyaha badanna loo xoreeyo degmooyinka galmudug ay kaga sugan yihiin kooxdu. madaxweynaha galmudug iyo taliyaasha ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo wasiirka gaashaandhigga waxay ku booriyeen ciidamada qaranka in sida ugu dhaqsiyaha badan gacanta loogu soo dhigo magaalada muhiimka ee ceelbo ee gobolka galgaduud, taas oo iminka ay ku sii siqayaan ciidamada dowladda. arrintan ayaa loo arkaa inay tahay qorshe muhiim u ah in ay sameeyaan tillaabooyinkan la xiriira in ay guud ahaanba al-shabaab ka sifeeyaan. madasha samata bixinta maamulka koonfur galbeed ee ay ku mideysan yihiin siyaasiyiinta miisaanka culus ee deegaanada koonfur galbeed ayaa warka soo saaray muddo kororsiga cabdicasiis laftigaleen. madashan waxay cadayseen laftigareen oo muddo bilooyin ay u harsan yihiin islamarkaasna waqtigu ka dhammaanayo 18 bisha September ee sanadka 2022 islamarkaasna aan laga ogolaan doonin muddo kororsi uu samaystay asaga oo ka deyriyay xaaladaha amni, bilaadanimo iyo maamul xumada ka jirta koonfur galbeed oo ay sheegeen siyaasiyiintan inay aadul xildhibaanada ka aragtida duwan koonfur galbeed ee baarlamaanka maamulkaasi laga saaray ayaa bayaanka lagu sheegay in xubnuhu ay si rasmi ah u leeyihiin kala fadhiga laguna dalbanayo in si degdeg ah loo furo. madaxweynaha maamulka koonfur galbeed ayaa lagu eedeeyay inuu maamulka ka dhigay maamul go'doon oo aan la shaqeynayn dowladda federaalka, waxaana siyaasiyiintu ugu baaqeen madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo ra'iisul wasaarihiisa iyo gudoomiyaha golaha shacabka in ay wax ka qabtaan muddo kororsiga sharci darrada ee laftigareen iyo tillaabooyinka kasoo horjeeda doorashooyin xor iyo xalaal oo ka dhaca koonfur galbeed.